dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo dowlad goboleedka kaleetaba waxay ku soo gudbiyeen shirkii Kismaayo cabashooyin fara badan oo qaarna saxaafadeed ku soo baxeen qaarna madaxweynayaashu markii ay ku noqdeen deegaanadoodii ay ka hadleen anaga Hirshabeelle ahaan dhibaatooyinka gaarka loo haystay horena waa u sheegnay xagga amniga noqotay xagga dakhliga iyo fiscal federalism ka noqotay xagga dhibaatooyin kaleeto oo muxuu ahay markaas anagu aanu arkayna faragelin lagu haayo muxuu ahay ii sheegeen baarlamaanka Hirshabeelle noqotay dhibaatooyinka aan qabnay waa ka hadalnay communique-gana fikradana waa ku cabirnay qoraalahana afahana waa uga hadalnay markii halkan aan nimid arrintii wixii ka dhashay waxay noqdeen inay saameyn weyn ku yeelatay deegaanada Hirshabeelle inay saameyn ku yeelatay deegaanada muxuu ahay xamar oo dad badan oo muxuu ahay muhiim ku ah Hirshabeelle ay degan yihiin salaadiin degan yihiin siyaasiyiin degan yihiin ganacsadayaal waaweyn ay degan yihiin arrintaas waxay keentay runtii iyadoo loo garaabayo dhibaatooyinka Hirshabeelle ka jira haddana in munaaqasho weyn laga galo si lagu xalliyaa dad badan waxay qabeen in yani culays ka jira oo ama baarlamaanka ka jira ama dowlad goboleedka ka jira in la sii badiyo la abo mataqaana go'aankaas meeshiisa ahaado dad badan oo salaadiinta kamida oo ganacsatada kamida oo dhaqanka kamida oo maamulkeena naftiisa markaan anagu culayskaas aan aragna watashi badan aan sameynay kamida hadiiba dawladda ay leedahay waxaan diyaar u nahay inaan Hirshabeelle kala hadalno dhibaatooyinka ay tirsanayaan waa noo suurtageli weysay inaan dadkeenii ku qancino maamulkeenii ku qancino anagu isku qancino dawladdii la hadlimayno runtii sida laga yaabo inaad ka warqabtaan wada hadal dheer oo ilaa 4 maalmood ayaan dawladda kula jirnay waxaana noo soo baxay xaaladda hadda meesha aan joogno inaanan choice lahayn in wada hadal arrintaas aan ka galno oo arrimahaas wada hadal lagu xalliyo sababta oo haddii aanan saas yeelin culayskiina xalismi maayo khilaafaad fara badan oo annaga dhexdeena ayaa halkaas ka soo baxaya annagu diyaar uma nihin khilaaf ka dhasha annagu awal culays qabnay in khilaaf ka dhasho dawladda halala hadla iyo lala hadli maayo waxaan diyaar u nahay in dawladda chance aan siino haddayba iyadu leedahay dhibaatooyinkiina wax ka xalinayna oo xildhibaanadii Hirshabeelle ka soo jeeda saas leeyihiin oo salaadiintii saas leeyihiin annaga maamulkeeni guddoon baarlamaan iyo maamul intaba waa diidi weynay waxaan door bidnay inaan wada hadalaas inaan galno annaga dawladda waxaan ku heshiinay in tabashadii Hirshabeelle ay gaar ahaan u tabanaysay runtii tabashada aan tabanaynay waxna annaga Hirshabeelle ay gaar noo yihiin amniga kamida sidaad ula socotaan culays aan la qiyaasi karin ayaa amniga xaqiisa annaga naga saaran wadadii Jowhar iyo muxuu ahay xamar waa xiran tahay wadada Beledweyne iyo Buulburti waa xiran tahay wadada Jalalaqsi iyo Jowhar waa xiran tahay wadooyin kaleeto oo deegaanada muxuu ahay ii sheeg marna waa furan yihiin marna waa xiran yihiin dakhliga xaqiisa oo fiscal federalism-ka muxuu ahay wadanka dekedow leeyahay annaga zoonkan aan ku naalo economic zoonkan aan ku naalo dekadiisa waa xamar dekadiisa haddii xamar tahay waxa noo soo dego xamaray nooga soo degaan waxaan dhoofinaa xamaray ka dhoofaan in muxuu ahay fiscal federalism-kii la hirgeliyo oo dekadaas anagu aan muxuu ahay sida Kismaayo iyo muxuu ahay Boosaaso ay u shaqeysa dawladdii federaalka ahayd oo dhan marti u ah in muxuu ahay saamiga aan ku leenahay laga siiyo culaysyada jira oo ah in fiscal federalism la hirgeliyo kamid tahay العموم أنا قد دبيتوين كأن قبنا كوا حتى أن متقن عن بلابين ما هو كوا دولتنا أكتر شيء يكون أجيه لكن كلية إن لجوا الشقاية إن دبيتوين كاس الحلية هديبة دولتي أي محو هاي اللي بنديني إيه سلادين تاني إيه دتكيني إيه ماملكيني أي كوكان عسيني وحكي قبنا يسو دبيتوين كاس تاجن أنا جوا أقبلنا إن محو هاي أنا جوا قدناين حالة أو دتكين كسوجيه صاحبتي أنت حتى بروسيس كانوا سعودي ولا هذا لا نو سعودي بصراحة قارب بدنو وحي كوم فرح سنة وحي جعلها يعني إن بدنا مدي العتكية ولا روجيو وسي موقف مديسن دولة الأولى قرقرتم ساسي جعلها يعني بين لقى مشي كرر هسا هاتي أنا وحنا بندقني ظروفها كاركهون هيست أنا والديار أمنيهن sida hadda galmadu ka dhacday oo kale dawladdii aan la hadalno iyo la hadlimayno
in hirshabeelle ku burburto qayb muhiima oo culays leh oo saameyn leh oo dhaqan leh oo siyaasiyiin leh oo ganacsato leh ayaa waxay qabaan in dawladda lala hadlo therefore anagoo diidayna dawladdii la hadli mayno khilaaf hirshabeelle ka dhasha oo maamulka dhexdiisana khilaaf soo geliya baarlamaanka iyo fulintana khilaaf soo geliya dadka miisaanka ku lehna khilaaf soo geliya iyadoo arrinta laga hadlahuba ay tahay in la wada hadlo annagu arrintaas arrinan dadka aan matalno aan u qaadno ma aha midda kale anigu madaxweyne waxaan ka ahay dowlad goboleedka hirshabeelle laakiin hirshabeelle beeran anigu iska leeyahay oo sidii aan doono aan ka yeelo maaha hadduu culays abuurmo oo dadka ka yimaado go-aankan qaadanaya inuusan dad badan oo aysan muhiim ku ahayn waxaan ku qasbanahay si kasta ha u qaraaraato inaan taladooda tixgeliyo haddana waxa meesha yaallahu dhib badanba maaha ha la wada hadlo dhibaatooyinka yaalana ha laga xaliyo arrintaa intaas la eg in lagu kala tago oo dawladda mataqaana hirshabeelle dhexdeeda fidna ay ka dhex dhacdo oo la kala hadlo oo mushkilad dhacdo ilaa dad baa qaba war maxaa loo hadli layahay arrintaas marka saas ayaa keentay sidan idii sheegana dhibaatooyinka jira ma aha dhibaatooyin hal maalin ku xalisma waxaan diyaar u nahay inaan dawladda engage gareyno kala hadalno kala shaqeyno dhibaatooyinka annaga noo gaarka oo culayska gaarka nagu haya in la xalino arrinta galmudug dhibaatada ay nagu hayso iyo culayska ay nagu hayso madaxdeeda iyo mas-uuliyiinteeduna waa ogyihiin dawladdana waa ka hadalna haddana waa sheegaya run ahaantii dhibaato ka jirta galmudug haddaanan la xallin hirshabeelle nabadu ka jiri mayso xataa xamar ka jiri mayso nabadu sidaas daraaddeed galmudug yaan la fududaysanin arrinta galmudug annaga dhibaatay nagu haysaa khilaaf wax lagu maxalliyo cid kasta oo caqli leh iyo cid kasta oo wanaag leh iyo cid kasta oo mas-uuliyad haysaahu qayb ha ka qaadato sidii muxuu ahay arrintaas wax looga xalli lahaa annaguna hirshabeelle ahaan guud ahaan muxuu ahay guddoonka baarlamaanka runtii waa nin aad muxuu ahay tiimkan sunna wal jamaaca aad ugu dhow oo wax ka gala guddoomiyahana baarlamaanka xaladaana ka wada hadlayni annagu waxaan diyaar u nahay wax alla waxaan ku beeri karno galmudug in la xalliyo inaan ka qayb qaadano isafgaradkaas inuu miro dhalo saaxiibadayna ay qancaan annaguna aan example noqono wada hadalkuna inuu faa'iido leh ay soo baxdo waxay ku xiran tahay darafka dawladda waxaan rajaynaynaa dawladdu inay ka miro dhaliso wada hadalladaas dhibaatooyinka aan sheeganan ay wax nagala qabtaan haddii ay wax nagala qabtaan oo arrimaha jir ay xalliyaan waxay incentive siinaysaa maamulada kaleetana inay yiraahdaan muxuu ahaa ii sheeg wada hadalku faa'iido ku jirta wada hadalku mirow dhalaa laakiin haddii annagana la dhaho muxuu ahaa ii sheeg danteena laga raaco laba dhibaataan qabnaa annagoo saaxiibadeenna muxuu ahay mataqaanaa yani ballantii uga baxayo mataqaanaa aan muxuu ahay aan ishaysano aan ahaano head inaan uga baxnay waana uga baxnay runtii sababtoo ah annaga culayska la geeyaa meeshaas la gaarsiiyey ayaguna waa ogyihiin waana u micnayna laakiin hadday haddana ka mira dhali waayaan waa laba geeriyaad waayo marka arrintaas inay faa'iido dhasho waxaan rajaynaynaa niyad wanaagga nala tuso inay ka dhalato